wasiirka wasaaradda madaxtooyada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo xildhibaano ka tirsan labada gobol ee qaran ayaa saaka ka qayb galay munaasabada xilka kula kala wareegaya maareeyihii hore dekedda Berbera iyo maareeyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maareeyihii hore ee dekedda Berbera kana sheekeeyay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu maamulayay marsadan Berbera waxaa hadalka uga dambeeyay maareeyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay xilkaasi xilkii shaqada dawladda iyo qaranka aan ku wareejinayo Axmed Yuusuf soo dhawow shaqadan waa shaqa aad taqaano aan ugu cusbay hore halkan madax baa ugu ahayd keliya wuxuu maanta u mari doonaa intii shaqadaas la maqlay wixii hore qabsoontay iyo wixii imika ku yaala ee aakhirka shaqada ku saabsan yaalka iska bilaabaysa iyo wixii dambaadaha hawsha lagu doono insha allah si mudan la 4 sano iyo hoggaan jooga halkan imika doorkan waxaa alxamdulilah rabbil caalamiin intaaba shaqada dekedda dee meel bay marayso iyo howlaha qaranku meel bay marayeen intaa runtii shaqo badan baan qabanay annaga oo iskaashi dekedeed ku hayno meesha oo shaqaale weynaha iyo murugmaalka waxaan dhisnay dhismo badan oo dekedda ay leedahay dhismaadaas waxaa u yaqaan daara la dhiso maahe dekedaha waxa dhismayaasha dhulka ka hooseeya ayaa la dhisaa infrastructure baa la yidhaha dhismahaasi waxa uu iminka qaadaa ilaa 5,000 ilaa 6,000 container salaanta kadib marka hore ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iska leh mahadda koowaad ilaahay baa iska leh mahadda labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar labaad intuu xilka hayay ii soo magacaabay inaan noqdo maareeyaha dekedda Berbera anigoo muddo 4 sano siyaadaan ka sii maqnaa iyo cid kasta oo arrintaa kala qayb qaadatayba intaa kadib dekeddu aniga iguma cusba ilaa 17 sano waan maraynaa inta marayay kolba heeraan ka soo qabtaba 17 sano khibrad badan oo igu filan waan u leeyahay intan iminka maareeyuhu sheegay wax igu cusub wuxuu baa jiray heshiiska Ethiopia taag boodkan processkiisu u socday oo markaa lacagta leenooma soo shubin lacagtan waxayna siisay World Bank ayna siiyay lacag jeebkeena aanu ka keenay 4.9 milyan maaha laakiin waa layna siiyey markaa muddo ilaa 7 sano 8 sano inta filaayo ayuu processkaas u socday tan waa challenge waxaan ku faraxsanahay in maareeyuhu dhammaystiray maadaama aan bilaabay markii hore oo shaqo badan lafteeda iga soo marto dedegenaayeen oo ka xaaray dadkii oo laakiin maareeyuhu wuxuu mahad ballaaran ku leeyahay aad ugu mahadnaqayaa inaan arkaayo midhihan geedkan beriga beeray oo uu ka midha dhaliyay isaguna sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Shombe على إنه مدير كوبر وشحين لكن أنا سيف عن سيف هنا أرجع وروا واحد مركا إذا رحت سماه قولنا يروح يهدون في نادوا وسوق يروح شيء هنا مقرن يلبس هذا ذكر واقع شيء أحمد بن سليمان ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray wasiirka wasaaradda madaxtooyada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jira soo dhaweyn iyo sagootin una kala wareejiyay labada mas'uul xilka injineer cali
waxaan ku hambalyaynayaa wixii uu ka qabtay xukuumadda iyo ammaanadii u hayay cid qarin kartaana ma jirto wuxuu halka bila rafle guuleed oo ahaa barasaab dowladdii maxamed siyaad barre ka mid ah oo barasaab ka noqday muxuu ahaayey howle iyo gobolkii waqtigaa la odhan jiray waqooyi galbeed ayaa ilaa iyo hadda laga sheekeeya wadooyinkuu sameeyey iyo bahalihii kawaanadii uu iskaa wax u qabso oo ku dhisay waa nidaam aynu kala horjeedo kala aragti ahay ayuu bila ka mid ahaa haddaynu barkhaatigaa ku bakaynano dee sidaa umaynu xusan taariikhda marka taariikhdu ma duugowdo waxaan leeyahay cali wuxuu halka ka qabtay qarin mayno waa qiraynaa wax wanaagsan buu ka qabtay mas-uuliyaddaana si mutakarnimo iyo odaynimo leh ayuu qaranka ugu shaqay waa ku mahadsan yahay waana ku hambalyeynay intaa marka laga yimaado maareeya cusub isagana waa sidaa cali sheegay oo wasiir cali sheegay isaga waynu ducaynay ilaahay inuu xilkaa ku asturo inuu ahaayey inuu si mas-uuliyadda u guto ayaan isagana ka rajeynaya midna waa nasiib wanaago cali ninku cusub halkan cabdirashiid mubaarak cabdirashiid suul telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Berbera.